بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعده marka hore waxaan salaamayaa dhammaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha channelkeena cilmi EVA channelkan oo aan ugu talagalnay inaan ugu faa'iideyno ardayda Soomaaliyeed ee dhigato dugsiga sare uguna faa'iideyna manhajka cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ee soo saartay kaasoo si nidaamiyan looga dhigo dugsiyada waxaana idin soo gudbin doono anigoo ah Suna Cabdirasaaq Maxamuud oo degan degmada Balcad gobolka Shabeellada Dhexe waxaan ku bilaabaynaa maadada biology-ga ayaan ka bilaabaynaa chapter 1 introduction of biology hordhaca biology-ga introduction of biology hordhaca biology-ga what is biology waa maxay biology-ga what is a biology waa maxay biology-ga Biology is a branch of natural science. Biology waa laan ka mid ah science-ka dabiiciga. Biology is a branch of natural science. Biology waa laan ka mid ah science-ka dabiiciga ah that deals with kaasoo qoseeya the study barashada of living things ee noolaha shayada nool. Waxaana la dhihi karaa living organisms noolaha nool waa la dhihi karaa. Biology ayaa leeyahay is a branch waa laan of natural science ee ka mid ah science-ka dabiiciga ah that deals with kaasoo qoseeyo the study barashada of living things noolaha nool sidoo kale waxaad dhigi kartaa jawaab kale waxaad ku dhiibi kartaa the science waa science-ka which deals kaasoo qoseeya with the study barashada of living objects shayada nool things waa shayo objects waa shayo waa isku mid waa the science-ka that deals with kaasoo qoseeyo the study barashada of living objects shayada nool and their life processes iyo nidaamka noloshooda and their life processes iyo nidaamka noloshooda iskooleed ayaa loogu yeeraa biology loogu yeeraa continue weli waa noo socda cashirkeena waxaan galaynaa qaybta labaad oo branches of biology laamaha oo biology u qaybsamo branches laamaha of biology ee biology-ga biology ayaa leeyahay is a broad science waa science cilmi science aad u weyn biology-ga ayaa leeyahay is a broad science waa laan science-ka ka mid ah oo aad u weyn that has many branches taasoo leh laamo badan that has many branches taasoo leh laaman aad u badan leh laakiin waxaa jiro two major branches laba laamood oo aad u waaweyn ayaa jirta of biology ee biology-ga waxaa jiro two major branches laba laan oo aad u waaweyn ayaa jirto of biology ee biology-ga loo qabiyo waxaa la kala yiraahdaa botany iyo zoology waxaa la kala yiraahdaa botany iyo zoology botany ayaa la yiraahday botany lagu qeexaa botany ayaa la yiraahday is a branch of biology waa laan ka mid ah biology-ga which deals with taasoo qosayso the study barashada of plants ee dhirta botany ayaa la yiraahday is the branch waa laan of biology ee biology-ga ka mid ah which deals with taasoo qosaysa ama ku taxalluqda the study barashada of plants ee dhirta sidoo kale dadka oo barta dhirtane saynisyahanka bartana waxaa loo yaqaanaa botanist ayaa loo yaqaanaa Okay, zoology ayaan galaynaa zoology ayaa is a branch of biology waa laan ka mid ah biology-ga which deals with taasoo qosaysa the study barashada of animals ee xayawaanada zoology ayaa leeyahay is a branch of biology waa laan ka mid ah biology-ga which deals with taasoo qosaysa the study of animals barashada xayawaanada saynisyahanka ama dhakhtarka bartana waxaa loo yaqaanaa zoology-ga cilmiga zoology-ga zoologist ayaa loo yaqaanaa zoologist waaydaas laga saara ist ayaa la raacsiinaa zoologist waxa waa is the doctor who specialized animals waa dhakhtarka ku takhasusay xayawaanada sida waxaan galeynaa some branches of biology-ga botany iyo zoology kaliya ma laamo badan ayuu leeyahay some branches qaar ka mid ah laamaha of biology-ga
and their definitions iyo qeexitaanadooda. Some branches qaar ka mid ah laamaha of biology ee biology-ga and their definitions iyo qeexitaanadooda. Ko morphology maxaa la yiraahdaa is the study waa barashada of external features qaab dhismeedka dibadda of an organism ee noolaha. Morphology ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of external features qaab dhismeedka dibadda of an organism ee noolaha. Cytology. What is cytology? Cytology ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of cells ee unugyada. Cytology ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of cells. Arday cell waxaa laga wadaa unug, yacni gacantaada marada ka qaad ee saas u fiiri. Dul walba oo jirkaaga ka mid ah ee ka soo baxaysa tin ayaa loo yaqaanaa cell, unug loo yaqaanaa. Cell waxaa la yiraahdaa cytology ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of cells ee unugyada. Histology is the study waa barashada of tissues ee nudayaasha. Histology ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of tissues ee nudayaasha. Microbiology is the study waa barashada of microorganisms ee noolaha ilmi aragtida ah. Macro iyo micro jirto. Micro waxaa la yiraahdaa waxa ay isha bini'aadamka aysan arki karin, tusaale sida bakteeriyada iyo viruska cudurrada sababo kaleeto. Macrona waxaa la yiraahdaa waxa ay isha arki karto. Microbiology ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of microorganisms noolayaasha isha aysan arki karin, waxaa lagu arki karaa microscope-ka oo weynaysada ah. Anatomy ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of internal structures ee qaab dhismeedka gudaha. External ma waa internal gudaha. Anatomy ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of internal structure qaab dhismeedka gudaha ku jiro, tusaale wadnaha, beerka, caloosha, mindhir weynaha, mindhir yaraha, kuwaas oo kale internal waa. Physiology waxaa la yiraahdaa is the study waa barashada of different types qaybo badan oo kala duwan, barashada qaybo badan oo kala duwan of body functions oo sida uu jirka u shaqeeyo. Physiology ayaa la yiraahdaa is the study waa barashada of different types noocyo kala duwan of body shaqooyin kala duwan oo jirka qabto barashadooda ayaa physiology la yiraahdaa. Marka jaamacadda dhigatidoo kaleeto oo qaybta health science oo kaleeto ama caafimaadka aad baranayso, buugaagta anatomy iyo physiology-ga oo isku darsanaa arkaysaa oo lagu baranayo xubnihii jirka iyo sida u shaqeeyaan. Microbiology-na inta badan waxaa barto dadka shaybaarada ayaa barto oo ardayda shaybaarka dhigto laboratory-ga barto ayaa microbiology-ga barto. Histology iyo cytology sidoo kale buugaag aad jaamacadda ku baran doonto waa haddii aad caafimaadka baranayso, waxaana lagu bartaa health science-ka. Hagaag waxaa halkaas inoogu eg qaybtii koowaad ee casharka introduction of biology-ga ee fasalka koowaad ee dugsiga sare. waxaan soo gaarnay gunta iyo gabagabada cashirkeennii maanta. Si aad ula socoto cashiradeena dambe, fadlan subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u hesho cashirada cusub. haddii aad ka heshay videogan, like saar, share garee oo la wadaag asxaabtaada kale. mahadsanidin.